Cameron Herrin waa wiil da'yar oo leh weji qurxoon oo u eg inuu yahay qof aan dambi gelin. Wuxuu u dhashtay oo ka soo jeedaa dalka Mareykanka. Da'diisana waa 21 sano. Wiilkan waxa uu galayaa xabsiga asaga oo da'diisa aad ay u yar tahay. Waxa uu ka soo baxayaa asaga oo da'diisa ay weyn tahay. Sababta loogu xukumay wiilkan xabsiga muddadaasi aadka u badan waa dilka uu dilay Hooyo iyo Gabadheeda yareed. Xukunkan oo maxkamadda ay ku xukuntay wiilkan waxa ay baraha bulshada ka dhaliyeen muran iyo dacwo badan. ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid. Mahadsanid. Qisada wiilkan Herrin lagu magacaabo waxa ay bilaawatay markii asaga iyo wiil ay ilmo adeero ahaayeen oo lagu magacaabo John Brenio ay go'aansadeen in ay ku dhaxtartamaan mid ka mid ah wadooyinka ku yaala magaalada Tampa ee dalka Mareykanka. Tartankan oo ahaa mid sharci darro ah. Micnaha tartanka babuurka ee sharciga ah waxa ay leeyihiin meelo u gaar ah oo loogu talagalay wax ka ilaalinaya in ay cid soo gasho goobtaas. Hase ahaatee Herrin waxa uu ahaa mid ka qayb galay tartankaas. Waxa uuna watay baabuur noociisa yahay Ford, midabkiisuna yahay madow, halka wiilka kale ay isla tartamayeen uu watay baabuur noociisa yahay Nissan, midabkiisuna yahay dahabi. Waxayna soo gaareen mid ka mid ah ishaarooyinka ku yaala wadada. Markii ishaarada noqotay mid cagaar ah, waxa ay baabuurka ku dhaqaajiyeen isbiid aad u sareeya oo waali ah, sida in ay film action jilayeen oo kale. Laakiin waxa wadada soo maray gabar lagu magacaabo Jinkar iyo cunugteedii yareed oo lagu magacaabayay Laliya oo jirtay 1 sano iyo dhowr bilood. Waxa ay ahaayeen kuwa marayay wadada. Hooyadan waxa ay ahayd mid lugaheeda ku socoto oo dhex maraysay wadada, halka ilmaha ay ku dhex jireen gaariga lagu wada carruurta. Muddo yar kadib waxaa meesha soo gaaray labadii baabuur oo ku socday isbiid aad u sareeya. Meesha ay maraysa Jessica iyo Gabadheedii yareed, maadaama uu baabuurka ku socday isbiid aad u sareeya. Herrin wuu awoodi waayey inuu xakameeyo baabuurkii uu watay, laakiin wiilka kale wuu awooday inuu wadada ka leexiyo. Hase ahaatee Herrin waa uu ku guul dareystay. Waxa uuna ku dhuftay hooyadii iyo Gabadheedii marayay wadada, taas oo sababtay inay dhintaan labadoodaba. Waxa uu dalbaday Jessica ninkeeda in la mariyo ciqaabtan ugu daran wiilkan dilay xaaskiisa iyo gabadhiisa. Run ahaantii waxaa lagu fuliyey dalabka ninkan, waxaana lagu xukumay Herrin xabsi muddo 24 sano ah, halka saaxiibkiis lagu xukumay 6 sannadood oo xabsi ah. Arrinta muranka aadka u weyn ka dhaliyey baraha bulshada waa muuqaal laga duubay maxkamadeyntii Herrin iyo falcelintii uu ka dhiibtay wiilkan markii xukunka lagu riday. Waxa uu bilaabay Herrin inuu soo jeediyo dhammaan dareemihiisa iyo inuu indhaha aad u kala qaado, taas oo caddeen u ah naxdinta iyo cabsida uu dareemayo wiilkan xukunka lagu riday oo ah 24 sano xabsi. Wuxuu sheegay qaadigii xukumay wiilkan sababta uu xukunka ugu adkeeyey inay tahay dambiyo hore oo Herrin lagu soo eedeeyey mar badan tartamada sharci darrada ah iyo baabuurta uu si waali ah u wadi jiray laga soo bilaabo ilaa markii uu qaatay laysanka darwalnimada. Qaadiga wuxuu intaas ku daray inuu rabo wiil walba oo sidan oo kala sameeya inay cashir u tahay